maanta ayaa xarunta kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud heshiis lagu kordhinayo dhinaca waxbarashada ay ku kala saxdeen jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama iyo hay'adda caalamiga ah ee Somdaf waxaana heshiiskaasi labada dhinac u kala saxay mas'uuliyiin ka socotay hay'addaasi caalamiga ah ee Somdaf iyo jaamacadda Camuud waxaana halkaasi lagaga hadlay in qayb cusub oo ku saabsan daraasaadka sare ee caafimaadka iyo waxbarashada lagu soo kordhiyay heshiiskii hore ee dhinaca waxbarashada ee u dhaxeeyay jaamacadda Camuud iyo hay'adda caalamiga ah ee Somdaf waxaana heshiiskaasi iyo ujeedadiisa ka hadlay Professor Salebaan Axmed Guulad the behavior of your staff, their adjustability, their respect for the values of local societies has been an instrument of success and has enabled other expatriates to emulate and get adjusted. Your name and your staff have all become household names in Borno, and it is with pride that we welcome you, and for another phase of cooperation that will set the stage for institutions in Somaliland to embark on. I must emphasize this is a turning point for Somaliland health system. It provides advanced training for our doctors at postgraduate level, and we congratulate your team both at Hargeisa and Boroma levels and at the England level as well for your success. This is an example of partnership that must be taken with as an example for all other partnerships. And congratulations. I thank you for that. Thank you, Professor. Thank you very much. sidoo kale waxa isaguna munaasabadii lagu kala saxanayay heshiiskaas hadal kooban ka jeediyay Dr. Said Ahmed Walhad waxaan bilownay sanadkii academic 2001 kii waxaan bilownay undergraduate kii baan bilownay marka imikana second step kii ayaan bilaabaynaa postgraduate studies kaasa muddo badan baan marka laga shaqeynay sidoo arrinkaas u hirgeli lahaa iyo cidii naga support karin lahayd iyo macallimiinta iyo qalabka sidii loo heli lahaa marka nasiib wanaag waxa aan ku guuleysanay inaan xiriir la yeelano hay'adda Somdaf oo degan Great Britain in sanadihii dambe naga caawinaysay undergraduate course naga caawinaysay ayaa haddana imika waxaan heshiis la galnay in ay naga caawiyaan postgraduate ama residency waxbarashadii labaad ee caafimaadka marka in dhowr qaybood buu ka koobnaan doonaa waxaan isku daynaa qaybaha waaweyn ee caafimaadka dhamaantood in uu sanadaha soo socda dhamaantood wada hirgalo oo kuwaas oo ah qalliinka guud daawada guud caruurta iyo xanuunada dumarka intuba inay dhawaan hirgalaan haddii ay beedhado waxaana basically waxaan isticmaali doonaa cusbitaalka Hayat oo cusub iyo Boroma General Hospital oo awal baan isticmaalaynay undergraduate isticmaalaynay marka mar haddii la bilaabayo waxbarashada qaybtii labaad ee digriga ka sareysay dadka soo gali doona qof kasta oo digriga haystay ayaa waxbarashada soo doonan kara qaybaha caafimaadka sheegay ma wixii qaatay first degree medicine ka qaato dhanba way ka soo qayb gali karaan waxaan ku xiran tahay marka in internship kana soo dhameystay 2 sanadoodna uu soo shaqeeyay shuruudaha lagu xidhay muddada bilaabaysan goorma noqonaysa markaas sanadka qalinada oo hubiyo macnaha ku horeysa waxaan bilaabnaa isla sanadkan haddii ay beedhaan sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay mas'uul sare oo ka socday hay'adda caalamiga ah ee Somdaf Camuud University for the opportunity to engage with the people of Somaliland as we look at nearly 10 years of partnering and to see what this country has become, to see what this institution has become, and to be a part of working alongside of our good friends. They're not just partners, they're friends, and that's what makes the difference, I think. So again, we look forward to taking this to the next step, to see this country come to the point where they can provide postgraduate medical training is something that we could have only dreamed about a few years ago.
And now we hope to see in a few years from now to look back and say that this was very, very significant time. So thank you for the opportunity of partnering with you in this area. Thank you. Wonderful. waa markii ugu horreysay ee jaamacadda camuud ay hesho waxbarasho heerka masterka oo lagu baranayo xarunta jaamacadda camuud ee magaalada boorama waa caafi boorama.